arinta lotteriga ayaan galay intii warbixin ugu muhiimsaneed ayaanan idiin soo ururiyay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee daneynaya sanadkan inay ka faa'iideystaan lotteriga oo nasiibkooda ay tijaabiyaan maadaama waqtiya nasiib ama waqtiya nasiib hadaba sida u taqaanidba uu yahay lotteriga horta lotterigan waxaa loogu talagalay dadka Mareykanka haajiritaanka uu ku yar yahay oo inta badan Mareykanka u soo haajirin ilaa iyo 55,000 ayuu Congressku u qoondeeyay sanad kasta inay wadanka yimaadaan waxaana sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay iyadoo qodobka loo adeegsanayo 203C in sharciga immigrationka ee la yiraahdo Immigration and Nationality Act in loo soo gaabiyo in wadamada loogu talagalay fiisahan lotteriga ah wadamada u soo haajiritaankooda Mareykanka uu aadka u hooseeyo waxaana muuqanaysa marka in hadda ay jiraan wadamo dhowr ah oo iyagu aan u qalmeynin sida halkan idinka muuqata maadaama la leeyahay 5 sano ee ugu dambeysay ayaa in ka badan 50,000 oo dadka wadamadaas ka yimid ay wadanka Mareykanka ay yimaadeen haddaba goorma ayuu furmayaa qofku sidoo u buuxi karaa shuruudaha looga baahan yahay maxay tahay marka uu guuleysto kadibna maxaa la gudboon waxyaabahaas ayaan rabaa inaan warbixin idin dulmaro kadib markii website-ka wasaaradda arrimaha dibadda aan booqdo isla markaana warbixinadan kala duwan idinka soo ururiyay haddaba diversity visa programkan waxaa sanadkan 2003 xilliga isdiiwaangelinta waxa ay furmay 6 bishan October oo aynu hadda ku jirno sanadkan 2021 maalinta Arbacada ayuu furmayaa 12 duhurnimo Eastern Time waa waqtiga bariga Afrika 12 duhurnimo ayuu furmi doonaa waxaana socon doonaa ilaa 9 bisha November ee soo socota 2021 12 duhurnimo ayuuna ku egyahay isla waqtiga Eastern Time marka uu furmayo website-ku waxa laga yaabaa in uu ciriiri noqdo oo buuxsamo oo uu ku gali waayo marka ma ahan inaan maalinta u horeeyo maalinta labaad ama isbuuca u horeeyo xitaa waad sugi kartaa maadaama waxaan ay yihiin waqtiyo nasiib maalinta u horeyso iyo marka lagu dhawaaqayo systemku waxa uu noqon karaa down oo aad ay u leedataa inaad gasho oo aad eegto inaad guuleysatay ama sidoo kale aad buuxiso marka maalmaha u horeeya hadii uu ku gali waayo maadaama dad fara badan ay galayaan oo ay buuxsanayaan waxa muhiim ah inaad sugto ilaa isbuuc ilaa 2 isbuuc maadaama muddo bil ah oo soconayo sida hadda wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhawaaqtay marka dadka buuxsanaya wasaaradda arrimaha dibadda website-keeda sida ku qoran waxa looga digayaa inay jiraan website-yo lacag ah oo lagu leeyahay website-kan halkan ka buuxsan kan ayaa sax waxay leedahay dad ayaa iska dhigaya website-yo qaldan ama email qaldan inay dadka u sheegaan oo yiraahdaan halkan ka buuxsada iyagoo website-ka wasaaradda arrimaha dibadda ka dhigaya arintaasi dadku way uga digayaan waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay application-kan inuu yahay online buuxintiisuna ay tahay mid aad u fudud isla markaana uu free yahay wax lacag aan laga qaadin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa jira dad arrimahan ku takhasusay oo buuxiya dadkaas waad u tagi kartaa lacag hadii ay ka qaataan dhibaato ma laha dad iyagu aqoon u leh laakiin ma ahan website inaad iska gasho website-ku lacag ku yiraahdo halkaas ka buuxsato website-ka wasaaradda arrimaha dibadda oo saxda ah waa inaad ka buuxsataa marka intaas hadii aan kaga gudbo xilliga uu furmayo waa 6 bishan oo maalinta Arbacada ku beegan 9 bisha November ee soo socota ayuuna xirmaya mar muddadaasi bilka ah ayuu furnaan doona haddaba maxaa looga baahan yahay marka qofka doonaya in uu lotteriga buuxsado marka hore qofku waxa looga baahan yahay magaciisa buuxa kan labaad midkiisa dhexe iyo last name-kiisa ayaa looga baahan yahay qofku magaciisa sida baasaboorkiisa ugu qoran waa inuu ku buuxiyaa baasaboorka uu ku buuxsanayana waa inuu noqdaa baasaboor aan dhacsanayn oo taariikhdiisu aysan dhacsanayn baasaboorkaasi sidoo kale wadanka laga soo saaray qofku waa inuu yahay wadankaasi inuu u dhashay marka baasaboor aan dhacsanayn waa inuu qofku ku buuxsadaa magaca uu ku buuxsanayo magaca baasaboorka ugu qoranna waa inay isleeyihiin sidoo kale dhalashadiisa ayaa laga rabaa maalinta bisha iyo sanadka waxa sidoo kale laga rabaa meesha uu ku dhashay waxa sidoo kale laga rabaa wadanka uu ku dhashay waxa jira sawirku wuxuu leeyahay qaab waa sida passport size noqdo noocaas ayaa marka waa sida hadda qoraalkan idinku qoran ayaa laga rabaa qofku passportka inuu noocaas noqdo sidoo kale qofku waxyaabaha looga baahan yahay waxa kamid ah in waxbarasho ilaa iyo dugsi sare ugu yaraan uu leeyahay ama xirfad shaqo uu leeyahay oo u dhiganto ku dhawaad muddo 5 sano ah xirfad uu ka shaqeynayay waliba xirfadaasi qofku shaqada markuu buuxsado hadhowda interview-ga ayaa la weydiin doonaa waxaana xaqiijinaysa wasaaradda shaqada ee dalka Mareykanka shaqadiisa qofku muddo 5 sano uu ka shaqeynayay oo khibrad u leeyahay halkaasi ayaa
laga fiirin doono. qofku hadduu uu single yahay waa inuu sheegaa, hadduu married yahay uu xaas leeyahay, caruur leeyahay, caruurta magacyadooda oo saddexan, baasaboorradooda, meesha ay ku dhasheen, waxaasoo idil ayaa laga rabaa. marka qaabkaasi ayuu qofku u buuxsanaya, waxyaabahaasi oo idil ayaa laga rabaa. wasaaradda arrimaha dibaddu marka dadku ay soo wada buuxsadaan oo soo buuxitaanku uu xirmo, combyuutar ayaa dadkan kala xulan doona. combyuutarkaasi marka waxaa la leeyahay wadan kastaba 7% wax ka badan oo viisayaashaasi ma heli doonaan. marka sida muuqanaysa wasaaradda arrimaha dibaddu marka ay dadku ay soo buuxsadaan, combyuutar ayaa waxaan kala xulan doona baqtiyo nasiibkan. marka nasiibkaada haddii ay noqoto halkaasi ayaad ku soo baxaysaa. marka shuruudahaasi ayaa qofka looga baahan yahay in uu maro marka uu buuxsanayo baqtiyo nasiibka ama lotarigan dalka Mareykanka lagu imaanayo. ilaa iyo 10 tilaabo ayay tilaabooyinku noqonayaan laga soo bilaabo qofku marka uu buuxsado soo xulashada, haddii lagu xushay sidoo kale interviewgi ayaa ku xiga, qofka in xilliga interviewga loo sheego uu isku diyaariyo. interviewga kadib qofku marka muxuu sameynaya interview kadib inta aan u guda galin qofka waxyaabaha looga baahan yahay loo sheegi doono. wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sheegtay in dadka la soo xushay oo combyuutarku uu soo xushay lagu dhawaaqi doono 8 bisha May oo ah bisha sanaad ee sanadka 2022 ee soo socda ayaa lagu dhawaaqi doonaa. sidoo kale qofka marka lagu dhawaaqo oo la soo xusho waxaa loo soo diri doonaa email, inta badan ayaa lagula soo xiriiraa. marka wasaaradda arrimaha dibaddu waxay leedahay dadka la xushay safaaradda ama qunsuliyadda ama wasaaradda arrimaha dibadda lama xiriirayso. marka aad buuxsato confirmation number ayaa lagu siinaya. confirmation numberkaasi xarfo iyo nambaro ayuu ka koobnaan karaa. marka waa inaad screenshot ka qaadataa oo aad emailkaada ku dirsataa. haddii aadan screenshot ka qaadan oo uu kaa lumo, kuuma suuro geli doonto in marka lagu dhawaaqo bisha May aad gasho website-kan isla markaana aad ogaato in lagu soo xushay ama in aan lagu soo xulan. marka waa muhiim confirmation numberkaasi qofku inuu screenshot ka qaato oo emailkiisa ku dirsado ama intuu daabacdo uuba meel dhigtaba, waayo numberkaasi waa number muhiima. haddii uu kaa lumo mar kale ha la ii soo diro ma soconayso, wasaaradda arrimaha dibaddu ma sameynayso. marka wasaaradda arrimaha dibaddu waxay leedahay qofka waraaq anagu uma soo dirayno, emailna uma soo dirayno, safaaradduna kuma wargelinayso qofka intay wacdo ma dhahayso waad guulaysatay ama waa lagu soo xushay. qofku isaga ayaa shakhsiyan marka la gaaro 8 bisha May ee sanadka soo socda 2022 website-ka ayuu galayaa, halkaasi ayuuna ka eegayaa confirmation numberkiisa inuu geliyo in la soo xushay iyo in kale. waxaa arkaya dadka qaar oo intay live galaan dhahaya ii sheeg confirmation numberkaada, halkan ayaan ku gelinaya, waa anaa ku fiirinaya. waxaa fiican qofka inuusan qof kale ku tiirsanaanin oo isagu fiirsado website-ka intuu galo confirmation numberkiisa geliyo ogaado in la soo xushay iyo in kale. haddaba qofku waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah dokumentiyada la yiraahdo DS 260. dokumentiyadaasi qofku marka lala soo xiriiro waa in uu online ku soo diraa si interviewgiisa markaasi safaaradda ama qunsuliyadda ugu dhow meesha uu joogo interview loogu ballamiyo. marka waa muhiim dokumentiyadaasi in aad soo dirto. marka qofku marka interviewga laga qaada kadib, sargaalka interviewga ka qaaday ayaa u sheegi kara in fiisihii uu helay ama sidoo kale loo diiday. qofka fiisaha haddii loo diiday waxaa loo sheegayaa inuusan helaynin fiisihii Mareykanka uu ku tegi lahaa, laakiin haddii la ogolaaday waxaa loo sheegi doonaa xilliga baasaboorkiisa loo soo celinayo oo weliba fiisihii saaran yahay. marka qofka baasaboorka uu wato ayaa fiisaha loogu dhejin doonaa. fiisahaasina ugu yaraan waa 6 bilood. 6 bilood oo fiisaha ayaa lagu siinayaa dadkaada aad ku macasalaamayso, ehladaada iyo qaraabadaada. laakiin haddii caafimaadkaada waqti dhow uu ka dhacayo waa inaad sida ugu dhaqsaha badan marka fiisahaada lagu siiyo aad u soo safartaa. marka sidoo kalena waxaa la siin doonaa waraaq xiran qofka marka uu ku guuleysto fiisihiisana baasaboorka loo saaro. waraaqdaasi waxaa loo sheegi doonaa inuusan furin halka Mareykanka uu ka soo galo oo point of entry-ga Mareykanka uu ka soo galo. saraakiisha immigrationka joogta ayuu u dhiibi doonaa, iyaga ayaa furaya. marka inaad furta maahan marka waraaqdaasi lagu marka processku sidaasi ayuu noqonayaa. 8 bisha May ee sanadka 2022 marka lagu dhawaaqo dadka la xushay, qof kastana waxa markaas laga rabaa dokumentiyadiisa oo la yiraahdo DS 260 inuu safaaradda u diro. kadib interviewga loo ballamay haddii qofkaasi la ogolaado oo fiisihiisa la siiyo, waxaa sidoo kale laga rabaa qofkaasi ku dhawaad muddo 5 bilood ah inuu processkaasi qaato laga soo bilaabo maalinta lagu dhawaaqay dadka la xushay oo 8 bisha May sanadka 2022 ilaa iyo 30 bisha September. intaasi hadduu ugu dambeyn 30 bisha qofku uusan fiisihiisa helin waxay ka dhigan tahay qofkaasi inuusan Mareykanka imaanin. sida hadda sanadkan dadkii ku guuleystay, maadaama hadda bishii dhamaatay September
soddonkeedii la yiri 14,000 dad ku dhawaada ayaa viisahoodii helay marka la barbar dhigo 55,000 ilaa 40,000 ma aysan guuleysan marka qofku ilaa iyo 30 bisha Sebtembar shantaasi bilood iyo marka lagu dhawaaqo 8 bisha haddii uusan fiisihiisa helin waxay u muuqataa qofkaasi marka in uusan imaanaynin Mareykanka uusan ku guuleysan fiisihiisa uusan helin maadaama sida muuqata hadda arrimahan cudurka coronavirus-ka dadkan soo galootiga ah ee wadanka ku soo qulqulaya dadkan reer Afghanistan arrimo fara badan ay jireen taasi ayaa wasaaradda arrimaha dibadda aan u suura gelin fiisiyaashii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay inay ku soo saaraan marka processka lottery-ga intaasi ayuu qaataa laga soo bilaabo qofku markuu xareeyo ilaa iyo haddii uu ku guuleysto fiisaha waqtiga uu Mareykanka imaanayo shantaasi bilood gudahooda ayaa loo baahan yahay wasaaradda arrimaha dibadda qofka inay fiisihiisa ay ugu soo saarto marka waxaan filayaa inay dad badan ay ka faa'iideysteen isla markaana waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa meesha aad ka xareynayso inaad iska hubiso aad ay u wanaagsan tahay waayo website waxaa jira ku dhahaya lacag bixi ama lacag marka fiisahan lottery-ga ah waa free qofkuna online ayuu website-ka wasaaradda arrimaha dibadda uga xareyn karaa sida wasaaradda arrimaha dibadda ay horeba